tiri it's already in the book anyway. And markaasay ku tiri Maggie, can I hug you? Ma hug ma ku siin karaa? Markaasay ku tiri haa. Dhakhtaradii way istaagtay, way ishagarayaan. Cabaar bay Maggie iska haysatay. Markaasay ku tiri gabadhii dhakhtarada ahayd, waan u baahnaa, aad baan hagtan ugu baahnaa, aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Thank you for hugging me. I needed this. Waan u baahnaa. Markaasay haddana mar kale isqabsanayaan oo isku ooyaan siday weligood is yaqaaneen. buuggii bay qaadanaysaa, gurigeedii bay la tegaysaa, buuggii bay bilaabaysaa inay akhrido. Imika she is getting to know the real people behind that beautiful picture iyo diiradii. waxay ogaanaysaa inay weligoodba saaxiib lilaahiya, lamaane dhab ah weligoodba ahaayeen, in labaduba ay weligood ogaayeen in midba midka kale kiisii yahay, jeexiisii kale yahay, in wuxuu ka sheekeynaya weligii aanu dhowdba ka gelin in ay iyada tahay qofkii loo abuuray, loo sameeyey, noloshiisana uu la qaadan lahaa, in uu rumaysan yahay ilaahay ka sokow in uu nool yahay because of her, in ay nacam jacaylkeedu inuu dawo u noqday so many times, marar badan in jacaylkeedu dawo u noqday, oo leukemiyadii carartay, lafaheedu u baqday. wuxuu ku waaniyey inay dib u guursato, in jacaylka iyo kalgacalka iyo quruxda iyo wanaagga aanay ku qaadan keligeed, ee ay ogolaato oo yeesho qof kale oo wanaagsan inuu nolosheeda soo galo, inuu rumaysan yahay inay mar kale is heli doonaan, inay jannadii isku arki doonaan, in jacaylkani ahaa mid perfect ah, dhammaystiran, in uu dareensan yahay inuu ahaa ninka adduunka ugu nasiibka badan. adiga ilaahay kaa siiyey, adaan kula qaatay 31 years, 30 sannadood of my life. markaan 5 jir ahaa baan ku bartay. nasiib badan yaa yes, adduunka aan ka tago anigoo weli yar, laakiin qof aniga da-daydahay 2-3 sano hadduu ugu bato ayuu jacayl arkaaba, hadduu weliba adduunka ka tegayo isagoo 30 jira. aniguna 31 years, 30 sannadood ayaan la qaatay the love of my life. wuxuu yidhi ogow, mar walbaad aragto our favorite flowerkeeni aynu adduunka ugu jeclayn, lilies, ogow inaanan kaa fogay. mar walbaad maqasho heesteen when a man loves a woman ogow inaanan kaa fogay. mar walba aad tagto our favorite cafe, labaduba they're from Vermont, wadooyinkaynu mari jirnay, meelahaynu tegi jirnay, ogow inaan ku haysto, inaan ku hagaraynayo. our favorite season, fall time, ogow mar walba oo aad meel maray sidoo caleemuhu sidaa usoo daataan ku hadheeyaan, inaanan kaa fogeyn. don't be sad ha noqon. 31 years baynu wada qaadanay. 31 years. we are the luckiest people in the world. dadka adduunka ugu nasiib badan baynu. sidaasoo ay tahay ballan igu qaad inaanad cidla joogayn, inaad waqtigaaga qof la qaadatid, in haddii ilaahay uu ubad ku siiyo aada wax dhashid, ha iska lumin fursadda. alla nasiib badanaa qofkaad ku dambeyn doontaa. another 30-40 years, whatever ay noqoto, qof kale fursad sii. waayo anigu ma welwelsanay, waxaan ogahay inaynu jannadii isku helayno. I love you very much. ogow inaad ahay laydhka noloshayda ifinayay,
isku dayay inaan joogo. I ran out of time. Waqtigii baa iga dhammaaday. waa inoo iyo jannada. Love, jacayl, kalgacal. So many people don't understand. dad badani maba fahmaan. Wallahi ma garan karaan. jacaylku haddaanu sidaa ahayn, haddii markaad qofkaagii eegtaba aan naxariisi kugu baahayn, aan qalbigu ku qoyin, indhuhu ku daraandarin, it's not worth it. It's not love. jacayl maaha. Just that one person. qofkaa keliya. One person, not everyone. Just ma taaban kartid xataa. Yeah, obviously the certain things waa muhiim. Integrity, milgo, sharaf, daacadnimo, attraction, all those things. laakiin haddana there's waxyaaba aan la taaban karin. jacaylkaas oo kale waxaan odhan karaa waa jacaylkii de aad jannada isku jeclayd een isku taqaaneen. soulmate, your other half. jeexaagii kale ilaa iyo sheekadeena dambe khayr iyo barwaaqaynu iskugu dah. Share, comment, like, follow, and subscribe. Indhaha qalbiga ka eeg ma fogo, indhaha qalbiga ka eeg ma fogo.